saxaafadda runtii aad iyo aad u mahadsantihiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen shirkan jaraa'id uu iiga horeeyay afhayeenka murashaxiinta haddana anoo ah afhayeenka guddiga badbaadada doorashooyinka qaran aan raba inaan idinla wadaago waxaan rabaa inaan marka koowaad idinkala hadlo halka uu marayo diyaar garowgii mudaharaadka sidaan wada ognahay dastuurkeenna wuxuu qeexayaa xaqa muwaadinka inuu mudaharaadi karo kaliya looga baahan yahay ogeysiis dawladduna maya iyo haa xaq uma leh kaliya waxaa weeye in la ogeysiiyo wixii intaa dhaafsiisan waa in waajibkeeda ay gudato oo ah inay ilaaliso amniga muwaadiniinta marka taa waa dhinaca xaqa dastuuriga abaabulka intaad la socoteen midowga murashaxiinta xarumahooda waxaa ka socda abaabul aad iyo aad u ballaaran oo wacyigelin ah oo abaabul ah oo runtii qaybaha kala duwan ee magaalada muqdisho ka socda waxaana ku talagalsannahay in tiro xoog leh ay ka soo qaybgeli doonto laba arrin baan rabnaa marka inaan dul istaagna mid waa dhinaca caafimaadka waxaan diyaarinay kumaankum waji xirad ama face mask waxa loo yaqaano inagoo og in waqtiga lagu jiro uu yahay waqti halis ah oo cudur halis yahay ka jiro dunida waxaan diyaarinay kow in aan mudaaharaadayaasha u diyaarino waji xirad ku filan oo qof walba la siin doono waa kow waxaan diyaarinay dhakhaatiir iyo nurses iyo ambalaasyo qayb ka noqon doona gargaarka degdega ah iyo haddii wax aan loogu talagelin dhaco waxaan diyaarinay cabitaano iyo wax walba oo qofka mudaaharaadaya uu ku joogi karo meesha uu ku mudaaharaadayo waxaan diyaarinay dad ka shaqeeya nabadgelyada oo ah dadka waxaa lagu wacyigelin doonaa ilaalinta nabadgelyada saraynta sharciga iyo u dulqaadashada dhib walboo ka soo gaara xaqa dastuuriga ah ee ay samaynayaan mar walba mudaaharaadayaashu waxay ka shaqayn doonaan nabadda sababtoy tahay xaqooda dastuuriga ayay ka shaqaynayaan salaada jumco waxaa lagu tukan doonaa isla daljirka daxsoon oo ah meesha ama goobta loogu talagalay inay dhammaan dadka ka qaybgalaya mudaaharaadku isugu imaan doonaan ama koonfurta magaalada ha ka yimaadaan ama waqooyiga ha ka yimaadaan ama galbeedka magaalada ha ka yimaadaan xaafad walba iyo meel walbana waxaa lagu diyaarin doonaa baabuur caasiyaal soo qaadi doonta meel walba oo ay joogaan abaabulku meel fiican buu marayaa waxaan rajaynaynaa jamcada dhawaaqa xurriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo saraynta dastuurka inay noqon doonto jamco taariikhda soomaaliyeed geli doonta jamco dib u soo noolayn doonta saraynta sharciga dimuqraadiyadda jamco qof dambe uuna isku dayin inuu waqti dheeraysto qof walbana afartiisa sano gudaheeda uu ka shaqeeyo dimuqraadiyadda iyo saraynta sharciga iyo doorasho waqtigeeda lagu qabto aad baa u mahadsantihiin wixii su'aala waa laydinka jawaabayaa laakiin intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago dadka ayagoo maasada madaxay university iyo socdaa haddii dadka face mask u xirtaan oo ay neeftooda inaysa isku gudbin ay timaado kala fogaansho ma imaanaya maadaama jirkooda istaaban kara hadday banaan baxay waxaan isku dayi doonaa sida ugu habboon ee ay u kala fogaan karaan maaragtay kala fogaansho ama social distancingka ay u samayn karaan sida magaaladan muqdisho si dhaanta ayaan isku dayi doonaa dadaal badanna waan samayn doonaa insha allahu tacaala afhayene waa Soomaali Cable dawladdu waxay sheegtay in covid qatartiisu jirto idinkuna taxadir sameynaysaa laakiin dawladdu waxay sheegtay in sutaga ama kulanka dhan iyo ahaanba ay iminka joojiyeen oo aan la sutay karin dadku isku imaan karin marka sidee idinku kulan qabanaysan haddii dawladdu kulanka horta waa marka koowaade covid-19 wuu jira isbuuc ka hor
markii gobolka banaadir baa 13 aqalka sare la siiyay lagu dhawaaqay in dawladdu daljirka dahsoon ku dabaaldegaysay arrin siyaasadeed ay ahayd wuu jiray marka waa moral high ground koodu aad buu u liitaa waxaa dadka wacdin kara sharcigana u sheegi kara qofka sharciga ku dhaqma laakiin qofka sharciga ku tunta isagu dadka sharciga uma sheegi karo gaariga agtaga dhanno aw kuwan fuula dhade gabdhaha qarashaa kala qodax farax ma tagi karaane هيا ستين بعد عافمات كتير بري بنام بحر ما شاء الله سوينا ما شاء الله مركب وحيابها عاد بالشدة وقبل دونتان محاكم ده سوينا ماسك كان كلوف الصور هيا شيء عمل كل خير هيا ان شاء الله هدي مركب قف وماشي كله وحيابة دق وقت كله تعشان وكلام ما موضع والله في زون فريسك ان شاء الله عدوا إلى إن شاء الله ايه ورن ساتا وامبلاستي بريميا بنابحا waayahay marka dadka meesha hadii xanuun uu yimaado waxyaabo degdeg ah qaadi doonta miya asaasan jeclahay oo meesha dib ka dhaca sida dadku la banaanbaxda jiro waa isbuuranaya dadku isbuurtay dadka naqsiga iyo qofkii xanuunsanay dooda caafimaad gaarsiinayna insha Allah baada caafimaadka ka mid tahay banaanbaxa berri sidee baad u aragtaa adigu والله بنابح قفكي انه في كيس فعبد ما بيزادوا بنابح نبدي نجيب خساره سنين مطاير سنه انا واي ان شاء الله ما سنتاي sida u jeedaan waxa halkaas taagan warbaahintii iyo sidoo kale xubno kamid ah dhalinyarada dhaqaatiirta ah ee gargaarka degdega ee berri banaanbaxa loo diyaariyay waxa hotelkan ku qabanayay maanta kulan gaar ah guddiga abaabulka banaanbaxa 19 Febraayo berri ku beegan xisbiga sahan oo uu hormuud u yahay murashax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed marka nakamida dabcan xisbiyada iyo sidoo kale guddiga ayaa dabcan ila jooga ninkan sii jeeda waa Cabdullaahi telefoon oo afayeenka murashaxiinta soo dhaw Cabdullaahi sata fiican walaasha abaabulka aad wadaan iyo banaanbaxa berri bal dadka live kala socda waxa uu sheegay waa masantiin abaabulka si fiican u socdaa runtii aad u fiican yahay dadku waa la wacyigelinayaa waa aragta ambalaaskaas ambalaasyadii iyo dhaqaatiirtii dadkina waa la diyaarinayaa bulshadana waa la keenayaa khudbadii meesha ka bixinaa waa la diyaarin doonaa si dimuqraadi ah xor ayuu noogu dhici doonaa oo nabad ah si fiican oo socda shalay xukuumadda xubno ka tirsan wasiirada waxa ay qabteen shir jiraa'id oo ay ku sheegayeen in isku imaatin uusan jirin marka wax saameyn ama ku yeelanaya banaanbixin amarka dawladda maya kuma yeelanayo dastuurka ayaa noo ogolaanaya annaga inaan mudaaharaad samayno waana xaq dastuuri ah muwaadiniintuna oo isu soo bixi doonaan iyagoo cabiraya ra'yigooda waaya marka fariinta aad u diraysid ugu dambeyn dadweynaha berri isku soo bixi doona ee Soomaaliyeed halkan ka jeed waxa weeye cabira ra'yigiina si dimuqraadi ah si xor nabadda hal la ilaaliyo hal kala fogaado qof walba maskiisa soo qaato eray bixinada iyo hal ku dhigiyada la qaybin doonana hal lagu dhawaaqo mudaaharaad nabada oo dimuqraadi ah oo u heelin doona saraynta sharciga ah noqdo maasantii waa maasantahay Cabdullaahi telefoon ayuu ahaa afayeenka murashaxiin midowga murashaxiinta guddiga badbaadada doorashooyinka aad baa maasantaa mudan waayahay aad buu mahadsan yahay waxaynu ku sugannahay waxaynu ku sugannahay hotelka Safari oo hadda uu soo dhamaaday daqiiqado ka hor kulankii guddiga abaabulka banaanbaxa berri xisbiga sahan iyo xubno kale oo mas'uuliyiin marka hadda waxaad u jeedaan dhaqaatiirta da'da yar ee loo diyaariyay in dabcan ay berri la tacaalaan
xaaladaha degdega ah haddii xaalada degdega ay yimaadaan banaanbaxa berri ambalaasta ayaad u jeedaan dabcan maadaama uu jiro cudurka corona lagu jiro cabdikariim xuseen guuleed murashax madaxweyne gudoomiyaha xisbiga sahan murashax madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed ayaa hadda la istaagaya dhaqaatiirta da'da yar loo diyaarinayo in ay la tacaalaan haddii iban beri ay wax yimaadaan banaanbaxa ambalaasta ayaa u jeedaan dabcan marka diyaargarow aad u weyn baa socda runtii oo dhan kasta ah sheergareeya muuqaalada sheergareeya waxaad nagala socotaan 5 TV sheergareeya si dadweynaha Soomaaliyeed u baahan macluumaad ku saabsan banaanbaxa beri ugu gaar Thank you.